waxa la diidayo warkiisa oo la dulminayo oo la yasaayo waa koonfur galbeed aniga wax problem gooni ah qabo male koonfur galbeedana madaxweyne ka ahay mana aqbalayo in dadka reer koonfur galbeed la dulmiyo wixii hore dulmiyadii hore oo jirayna nala soo xasuusiyay waxaan aqbalayno ma aha waxaan u baahannahay doorashada wada ogol waaye in nagala qanciyo dhibaatadan annaga qaaska nagu ah iyo isbaaradan naloo dhigtay naloo sheego waxay nagu qabatay naloo sheego waxa nagula haysto naloo sheego waxaan qaladnay inaan fahanaan rabnaa nala mariyo habraaci rasmiga ahaa oon xaqa u lahayn oon qorannay waxaan u baahannahay inaan ka hadalno sababta naloo joojiyey intaas waxaa dheer oo dhaqan ahoo la bartay dadkii soomaaliyeed iyo dadka hadda caadaystay inay reer koonfur galbeed dulmiyaan wakhtiga oo maanta 2002 la maraayo in inta message xildhibaanada loo soo diro oo social mediaha wax lagu soo qoro la yidhaaho ayagoo joogaana kooram waa dhan yahay waa la dooranayaa waa laga soconayaa waa la marayaa waxaas wax soomaalinimo ana ma aha meelay ka shaqaynaysana male dalkana waxaa ka jirta dowlad federaal ah dowladda federaalka ah ayada oo state ama qof uu maqan yahay wax dowladnimo ah iyo wax doorasho ah iyo wax dhismo ah oo socon kara ma jiraan hadday jiri lahaayeen horaan u samayn lahayn oo annagaa doorasho geli lahayn oo xildhibaano qaban lahayn markii ay isteedyada kale dacwada qabeen yaan maxay ahaydee doorashada qabsan lahayn soomaaliya kala go-aysaa shalayna la dhahayo annaga soomaali ma nihin miya dacwada annada lama dhegaysanayo miya annaga ma gu'i karna miya annaga dadka culays kuma hayna miya xaq uma lihin miya inaan nidhaahno waryaana la dulminin maxaa nagula dulminayaa shalay kuwii dulmiga ka baqaayey ama lahaa waa naloo joojiyey lahaa oo annaga aan ku soo baxayna ayaga maanta xaq nooguma le miya inay nagu soo baxaan oo na weydiiyaan aaway sistamkii iyo nidaamkii ay ku socotay doorashada iyo heshiiskii iyo wadar olgolkii iyo isqancintii ay ku socotay maxaa sababay in koonfur galbeed keligeed jid loo istaago maxaa sababay ayadoo dana siyaasadeedoo gaara laga leeyahay ama ujeeddooyin guracan la qabo in la yidhaaho lama joogsanayo oo lasoo qoroo la yidhaaho waa la dooranayaa taariikhda waa la socotaan hadda ka hor jabuuti markii dowladda ugu horreysay la dhisaayay waxyaalaha la soo qoraayo waxay xasuusinayaanay ka mid tahay yaa markaas ma jirin koonfur galbeed federaalna ma jirin waxaa jiray inta waxaa ka jiray ururkii arare laakiin waxaa meesha lagu tegey si qabiil ah si laabla ka ahaa wax lagu dhisay waxaa bannaanka uga baxay doorashadii dadkii deegaanadan ka soo jeeday waxaa la yidhi looma joojinaayo ayada oo la rabo guddoomiye baarlamaan in loo doorto yaa waxaa la yidhi waa la dooranayaa looma joojinaayo waa la doortay dad waxaan arkaya labadan beri wixii ayagaa soo qorqoraayo war shalay jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya la ahaa laakiin maanta waa dowladda federaalka soomaaliya heshiiska la qaatayna waa nidaam federaal ah oo imbagaati lagu soo dhisay nidaamka federaalkana wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo wuxuu u baahan yahay wada ogolaasho state wax diidan dowlad dhiska soomaaliya dacwo ka qabo keligiis cid wax u suubin karta ma jirto annaga waxaan dareensannahay wax ku talagal ah oo la diiday in nagala talageliyo oo la diiday in laga hadlo oo loogu talagalay naloogu talagalay annaga oo dee markaan hadalnana naloo sheegaayo waxyaalaha nagala rabo oo shuruudo iyo conditions leh oo ka mid ay tahay hebel xildhibaan ma ka dhigaysaan waa kuu daynaynaa kuwa kale waxaas ma bixinaysaa kuwa kale waa kuu diidaynaa annagaa inta kuu taagan ma yeelayna la leeyahay waaye waxyaalaha aan diidanahay